انت سه دولتينو برواقنا حسينين والله وتا حيان تدل وتا أقورتي كايساني سميشا الدنيا ظهري وقارتي انت سه دولتينو برواقنا حسينين والله وتا حيان تدل وتا أقورتي كايساني سميشا الدنيا ظهري وقارتي حنون انت شعبك هيلا هالشيني يعانهنا هاروكو وداقي دينا هي دي ميلادينا حنون انت شعبك هيلا هالشيني يعانهنا هاروكو وداقي دينا waxaan salaamayaa madaxweynaha dawladda Puntland golaha wasiirada xildhibaanada Puntland xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyaasha xaafadaha iyo dhammaan shacabka xaafadan Halwadaag iyo Garowe salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maantayna waafajiyey inaan soo gabagabayno shaqadii noo socotay muddadii 2 sano ahayd waan ku jirnay guryahan iyo dhismahoodii oo maanta aan runtii ku casuunay madaxweynaha iyo dawladda inay inoo xarig jaraan inay la ogaadaan wixii aan muddada wadnay madaxweyne iyo mudanayaal waxaan rabaa inaan idiin sheegno meeshan waxa la yiraahdaa xaafadan Halwadaag waxa laga dhisay kunguri sida la idiin sheegay maalinta aan shaqada bilaabay waan la bilaabay inaan hawshan ka shaqo galno culaysyo badan kadib ilaahay baa na waafajiyey inaan maanta ay noqoto maalintii ugu dambeysay xarig jarka ahayd dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay 5,000 oo qoys walina dad kale u sii dhiman oo aan wali soo ururin runtii dadkaas waxay ku noolaayeen nolol adag qofkii tagaana garanaya meesha ku noolaayeen roobka ma habaari jirin laakiin waa ka nixi jireen wax kalena maaha daad baa qaadi jiray guryaha ku daroori jiray culays baa fuuli jiray waxa uu sii dheeraa nimanka tuugadayo sandaqada inta hoos ka soo galan qaadka ka xada gabdhahana ka kufsaday baa ka sii darnaan jirtay alxamdulillah ilaahay maanta qof walba wuxuu degan yahay guri isagu leeyahay oo sabr lagodiisa haysto dadkan meesha fadhiya iyo inta banaanka taagan waan aad uga xumaayay meesha ay naqaadi weyday qof walba waxa ay sabraloodiisa oo magaciisa ugu qorantay lahaanshiisa oo caawa haduu ka dhinto isaga mooyad kale aan laga dhaxlayn taasna waa ilaahay mahadiis waxaan ku ballanay hadaan nahay anaga yahaduhu Garowe in laga waayo meel sandaqada oo dadka reer Garowe ay wada sintaan oo qof walba uu dago guri uu leeyahay si anagu aan u daganahay kale maxaa yeelay dadkan waa dad Soomaaliyeed meesha reemaha ka yimaadeen ودد ولالا ودد إهلا ودد حيدا ودد قرابة مركع عدالات ما ينقفنه وبوش دقنا هذا قفنه وسلوين دقنا ما إحنا دد كارنا وقرينه سير الله وصلت إن شاء الله تعالى كوا هذا النوع هرينا وحرتين نجعنا إن كسر دون أنت عن ماشي سيجون هذه الهاي سيجون هاي نوصل إنتان وكله دد كواحد كل الله أمره مركل السنة يسبب الله قضاء قفل بواحد الله كان اللي بجد وحنا كل بيرتقولي جسيلين كيس قف كي كقل الشرا وحنا كبلا نيل وجناحه يدا إن شاء الله وسير كده كواتش وسائل الله هذا الدونة وحال رام قال هذا التاني إن نقطع عقار يقرح ودوينك
واركتين ودada ugu yar baa 5 mitir ah inta kale waa ka sii waaweyn waxaan rabnaa inaan mustaqbalka laami u marino wadada weyn iyo kuwa dhex maro insha Allah ta'ala hal cabasho ay qabeen waa ogeydeen cabashadina maanta gabagabeen insha Allah maxay tahay waxa idinku daraa wuxuu ahaa ismaqal weyna Soomaa khadma jira Soomaa maanta la idin bal qaaday in birtu ugu horeysay goorta idin taagi doonto insha Allah waana fadhiya golis maamulkeena xaruna waa la idinka furi doonaa golis oo markii aan lacagaha sameysano lacag ku soo doontaan deelaan waxaan jecelahay marka warku iska kooban yahay madaxweyne mudanayaal waxaan rabnaa marka aynu hawsha ka baxno inaan xarumihii wada marno xaruntii booliiska caafimaadkii MCH-kii iyo iskuulkii kullina tagnaa rabnaa idinku aad aragtaan wixii aan meesha ku haynaa la aragtaan si marka idinka laftigoona aad u aragtaan xogta rasmiga aad u heshaan meesha hadda aan joogno waa community centerki way meesha dadku ay ku shiraan weeye meeshayna ku dhigana waa MCH-ki weeye laakiin MCH waa ka weyn tahay cusbitaal bay qarka u saaran tahay insha Allah ta'ala aad baa mahadsantihiin khayr insha Allah